Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan oo meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada casharadii tixanaha ahaa ee aan idiin soo gudbin jirnay. Maantana waxaan filayaa casharkeenu inuu aad u xiiso badan yahay oo waxa uu ku saabsan yahay sida ciwaankaba idinkaga muuqata synonyms oo ah erayo isku macno ah ama aad iskaga agdhow. Si faahfaahsan ayaan u guda geli doonaa ee kusoo dhawaada casharka. Abandon waxaa la macnaa forsake, waa ka tegid ama ka hajirid. Okay, example-ka raacsanayno fiirino. X waxaan kasoo gaabiyey example. People dadku often badanaa simply si fudud abandon ayay uga tagaan their pets xayawaanadooda when they go abroad marka ay dibadda aadayaan. When they go abroad marka ay dibadda aadayaan. Okay, able waxaa la macnaa capable. Able waa awood leh, capable waa awood leh. You must be able waa inaad awoodaa to do inaad samaysid this work shaqadan. You must be able waa inaad awoodaa to do inaad samaysid this work shaqadan. Assist waa caawin waxaa la macnaa help. Example-kan aynu fiirino. Anyone willing qofkii doonaya to assist inuu caawiyo can contact waxa uu la xiriiri karaa this numberkan. Anyone qofkii willing doonaya to assist inuu caawiyo can contact waxa uu la xiriiri karaa this numberkan. Haddaad rabto ku bedeli kartaa waa dhihi kartaa help. Anyone qofkii ama cidii willing doonaysa to help inay caawiso can contact waxay la xiriiri kartaa this numberkan. Waayahay aynu hore u socono. Admit waa qirasho waxaa la macnaa confess. Example-ka aynu fiirino. Don't be afraid ha ka cabsanin to admit inaad qiratid to your mistakes qaladaadkaaga. We persuaded waxaana ka dhaadhicinay her ayada to confess inay qirato her crime dembigeeda. Don't be afraid ha ka cabsanin to admit inaad qirato to your mistakes qaladaadkaaga. We persuaded waxaan ka dhaadhicinay her ayada to confess inay qirato her crime dembigeeda. Okay, agree waa ku raacid waxaa la macnaa consent. Agree ku raacid, consent ayaa la macnaa. Example fiirino. I agree with her waan ku raacay ayada. I agree with waxaan ku raacay her analysis falanqaynteeda of the situation ee xaaladda. I agree with waxaan ku raacay her analysis falanqaynteeda of the situation ee xaaladda. Okay, kuwaana waa isku macno. Aim, goal, purpose intaas waa isku macno. Waa ujeedo ama hadaf macnayaashooda iskaga dhow yihiin. Okay, example-ka fiiri marka. Our main aim ujeedadeena ugu weyn is to increase waa in aan siyaadino sales iibka in Europe. Badeecadaha aan Europe geynayno iibinayno waa inaan siyaadino. Our main aim ujeedadeena ugu weyn is to increase waa inaan siyaadino sales iibka in Europe oo Europe aan ka sameynayno. Okay, another example tusaale kale. Your goal hadafkaaga ama ujeedkaagu as a parent waalid ahaan is to help waa inaad caawisaa your child cunugaaga. Okay, aynu hore uga sii soconno kaasna. Alike same waa isku mid macnaheedu maxaa waaye same isku mid ah, alike isku mid ah ama isku eg. Okay, aynu fiirino example-ada. My mother hooyaday and I iyo aniga are alike
waan isku egnahay in many ways habab badan ama siyaabo badan waan isku egnahay. Okay, example kale fiiri. She was born on the same day. Waxa ay dhalatay isla maalintii as me anigu aan dhashay. She was born waxa ay dhalatay on the same day isla maalintii as me anigu aan dhashay. Okay, all every macnuhu iska agdhow yahay kuwan oo all waa dhammaan, everyna waa mid kasta ama wax kasta. Okay, aynu fiirino. The boys wiilashu played waxay ciyaareen video games ayay ciyaareen all day maalintii oo dhan. The boys wiilashu played waxay ciyaareen video games ayay ciyaareen all day maalintii oo dhan. I enjoyed waxaan ku raaxaystay every minute daqiiqad kasta of the film ee filmka. I enjoyed waxaan ku raaxaystay every minute daqiiqad kasta of the film ee filmka. Okay, arrive waa imaasho, reachna waa gaarid. Way iska agdhow yihiin marka, aad bay iskaga agdhow yihiin. Aynu fiirino example-ada. They arrived waxa ay tageen ama imaadeen at the airport garoonka at 10:30 10:15. You should reach waa inaad gaartaa ama aad tagtaa there halkaas around the abaaro ama qiyaas ahaan 9:45 am 9:45. Okay, ask iyo inquire waa isku mid. Ask weydiin, inquire weydiin. Example-ka aan eegno. We'll have to waxaan ku qasbanaan doonaa ask someone inaan qof weydiino the way wadada to the station xarunta sida xarunta tareenada ama xarunta basaska. We'll have to waxaan ku qasbanahay ama ay tahay ask inaan weydiino someone qof the way wadada of the station ee xarunta. Example kale fiiri. I called waxaan wacay the station xarunta to inquire si aan u weydiiyo about train times waqtiyada tareenka. I called the station xarunta ayaan wacay to inquire si aan u weydiiyo about train times waqtiyada tareenka. Why? Allow iyo permit waa isku mid, ogolaansho. My parents waalidkay wouldn't allow me ima ogolaanayaan to go in aan aado to the party xafladda. My parents waalidkay wouldn't allow me ima ogolaanayaan to go in aan aado to the party xafladda. Amiable iyo friendly waa isku mid, furfuran waa qof furfuran. Her parents waalidkeed seemed waxay u muuqdeen very amiable kuwa aad u furfuran. Everyone qof kasta was very friendly waxa uu yahaa qof furfuran aad u furfuran towards me aniga xaggayga. Everyone qof kasta was waxa uu ahaa very friendly mid aad u furfuran towards me aniga xaggayga, mid furfuran ayuu qof kasta ahaa. Okay, amount iyo quantity iyo amount waa isku mid, waa cadad ama tiro. We have had waxaan haysanay an enormous amount cadad badan of help oo caawimada from people oo dadkaan ka helnay. The police also sidoo kale found waxay heleen a quantity of ammunition cadad badan oo rasaas ah in the flat ay guriga ka heleen. Angry waa xanaaq, madna waa xanaaq. Her behavior dhaqankeedu really runtii made me angry wuu iga xanaajiyaa.
example labaad eeg he is always badanaa being mad waxa uu ku xanaaqaa about kids caruurta. He is always being mad waxa uu mar walba ama badanaa ku xanaaqaa about kids caruurta. Eastan waxaa laga soo gaabiyey he has always been mad waxa uu badanaa ama mar walba ku xanaaqaa about kids caruurta. Thank you very much. aad ayaad u mahadsantihiin. Intaas ayaan casharkeena maanta kusoo koobaynaa. Fadlan nagu soo biir haddii aadan hore nagu soo biirin, sidaas oo kalena sii gaarsii walaalaha kale uusan casharkan gaarin. Mahadsanid.